Asalaamu calaykum halkaan naga daawanaysiin waa wanaagga qoyska aala ugu barateen wararkii ugu dambeeyey hay-adda sirdoonka qaranka iyo nabad sugidda Itoobiya oo magaceeda loo yaqaano NISS ayaa wacad ku martay in ay la xisaabtami doonto qof walba oo baraha bulshada ku daawacay ama ku sheegareeyay waxyaabo ay ugu yeertay wararka marin habaabinta ah ee ku saabsan caafimaadka ra-iisul wasaaraha 44 sano jirka ah oo lagu magacaabo Abiy Ahmed. hay-adda ayaa sheegtay in wararka noocaas ay qalqalgeliyaan ammaanka waddanka. goor sii horeysay ayaa warbixin laga soo saaray xafiiska ra-iisul wasaaraha shacabka looga dalbaday in ay ka fogaadaan wararka la isla dhexmarayo ee aan xaqiiqda ahayn. dhanka kale, bayaan ay soo saareen saraakiisha taliska laanta sirdoonka oo lagu shaaciyay wakaaladda wararka ee dowladda Itoobiya ayaa lagu sheegay in dadka baraha bulshada wararka ku saabsan caafimaadka Abiy Ahmed ku faafinayo ay si qaldan u isticmaalaan xuquuqda xorriyadda hadalka. waxayna sidoo kale hoosta ka xariiqeen in cawaaqib xumo laga dhaxli karo arrintaasi. laakiin dad badan ayaa isweydiinaya wararka sheegaya in ra-iisul wasaaraha Itoobiya ay xaaladiisa caafimaad aada u daran tahay maadaama ra-iisul wasaaraha hadalkiisa la waayay in ka badan 2 isbuuc. dad ayaa sheegaya in ra-iisul wasaaraha Itoobiya uu ku dhacay xarunka coronavirus. dadka kale ayaa sheegaya in ra-iisul wasaaraha xaaladiisa caafimaad ay aada u daran tahay maadaama wadnaha laga hayo, laakiin wixii jira Allahu aclam. halkaan naga daawanaysiin waa wanaagga qoyska aala ugu barateen wararkii ugu dambeeyey. fadlan haddaan wax cusubtaas subscribe dheh si aa u helin asxaab cusub maalintan aan ku wacnaato.